murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaridka Somaliland ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro oo ku sugan dalka dibadiisa ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook waxa uu kaga hadlay xaaladda dalka gaar ahaan xaaladda golaha wakiilada Somaliland oo maalmihii u dambeeyay uu ka taagnaa buuq kala irdheeyay xildhibaanada muxaafidka iyo mucaaridka oo ku kala aragti duwanaa xeer number 14 oo ka hadlaya furista ururada. murashax Cabdiraxmaan Ciro waxa uu buuqa ka dhacay golaha wakiilada Somaliland uu ku eedeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu sheegay in uu faragelin ku hayo golaha wakiilada. qoraalka uu murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro uu ku soo baahiyay barta uu ku leeyahay Facebook ayaa u dhignaa sidan: dowladnimadeena waxa saldhigeeda ugu weyn uu yahay in uu sareeyo sharcigu. muddadii uu talada dalka hayay madaxweyne Muuse Biixi waxaa xisbiyada mucaaridka dulqaadkooda xudun u ahaa dhowrista kala dambeynta hanaanka dowladnimo iyo nabadda, welina waa ay ku taagan yihiin kuna adag yihiin. laakiin waxaa cad in madaxweynaheenu kala qaybsanaantii uu ku yimid aanu weli ka waantoobin, ayuu ku yidhi Cabdiraxmaan Ciro qoraalkiisan. maalin walba waxa uu la soo baxayaa dhaqan cusub oo uu ummadda ku kala irdhaynayo, isagoo ku darsaday in maalinba tiir dowladnimadu ku taagan yahay uu dumiyo. waxaa cad in maalinba maalinta ka dambaysa sharciyadii dalka iyo nidaamkeenii dowladnimada sida uu doono uu ka yeelo. nabadda iyo dowladnimadii dadka ka dhaxaysayna u sadqeeyo damaciisa iyo doonistiisa. taana waxaa daliilkeeda inagaga filan fowdada uu geliyey golihii wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland iyo ciidanka xabadda nool u adeegsaday xildhibaanadii xasaanada dastuuriga huwanaa, ayuu murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ku yidhi qoraalkan. isagoo aan nabaradii hore dhayin ayuu madaxweyne Muuse horteena ku tumanayaa sharcigii dalka. waxa uuna rabaa inuu gacantiisa ku baabiyo hay'ado dastuuri ah oo muddo xiloodkoodii dhammaan, isna muddo kordhin aan sinaba u suurtagelaynin cidlo ka baadhbaadho. laakiin waxa uu moogan yahay, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Ciro, in isagana sharciyadiisa madaxweynenimo mugdi geli doonto haddii uu ixtiraami waayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka. murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku soo qaatay tuduc ka mid ah maanse uu tiriyay Abaan Hadraawi oo uu ku yidhi: nin daacad hoggeeda qoday miyuu ka dambaynayaa? doorashada madaxtooyada xilligeedii ku qabo 13 bisha Noofembar sannada 2022. qiiq isku qarin iyo ururo xilligoodii ka hor la furayo laga yeeli maayo. asxaabta mucaaridka ahina waa u diyaar in ururada siyaasadda xilligooda la furo. shacbigana jahawareerinta Muusow ka daa, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Ciro. anigu diyaar baan u ahay inaan furo ururada siyaasadda haddii aan ku guulaysto xilka madaxtinimada ee dalka, bal shacbiga Somaliland ha isweydiiyaan in ururada siyaasadda la furo waxa ay ku sinayd saxeexa madaxweyne Muuse. haddii ay ka run tahay, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Ciro, in uu furo ururada, muxuu u saxeexi waayey markii uu hor yaallay xeerku intii uu soo diiday ugu soo celiyey golaha wakiilada? Muuse waxaan u sheegayaa, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Ciro, in aanay shalay maanta ahayn. xisbiyada mucaaridka ah ee aqlabiyadda jamaahiirta Somaliland wata ma ka yeelayaan, mana u qurqursamayso inaad hortooda Jamhuuriyadda Somaliland iyo dimuqraadiyadeeda ku burburiso, ayuu ku soo koobay murashax Cabdiraxmaan Ciro oo hadalkan ku qoray barta uu ku leeyahay Facebook. murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaridka Somaliland ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro oo ku sugan dalka dibadiisa ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook waxa uu kaga hadlay xaaladda dalka gaar ahaan xaaladda golaha wakiilada Somaliland oo maalmihii u dambeeyay uu ka taagnaa buuq kala irdheeyay xildhibaanada muxaafidka iyo mucaaridka oo ku kala aragti duwanaa xeer number 14 oo ka hadlaya furista ururada. murashax Cabdiraxmaan Ciro waxa uu buuqa ka dhacay golaha wakiilada Somaliland uu ku eedeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu sheegay in uu faragelin ku hayo golaha wakiilada. qoraalka uu murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro uu ku soo baahiyay barta uu ku leeyahay Facebook ayaa u dhignaa sidan: dowladnimadeena waxa saldhigeeda ugu weyn uu yahay in uu sareeyo sharcigu. muddadii uu talada dalka hayay madaxweyne Muuse Biixi waxaa xisbiyada mucaaridka dulqaadkooda xudun u ahaa dhowrista kala dambeynta hanaanka dowladnimo iyo nabadda, welina waa ay ku taagan yihiin kuna adag yihiin. laakiin waxaa cad in madaxweynaheenu kala qaybsanaantii uu ku yimid aanu weli ka waantoobin, ayuu ku yidhi Cabdiraxmaan Ciro qoraalkiisan. maalin walba waxa uu la soo baxayaa dhaqan cusub oo uu ummadda ku kala irdhaynayo,
isagoo ku darsaday in maalinba tiir dowladnimadu ku taagan yahay uu dumiyo. Waxaa cad in maalinba maalinta ka dambaysa sharciyadii dalka iyo nidaamkeenii dowladnimada sida uu doono uu ka yeelo, nabadda iyo dowladnimadii dadka ka dhaxaysayna u sadqeeyo damaciisa iyo doonistiisa. Taana waxaa daliilkeeda inagaga filan fowdada uu geliyey golihii wakiilada Jamhuuriyadda Somalilan iyo ciidanka xabadda nool u adeegsaday xildhibaanadii xasaanada dastuuriga huwanaa, ayuu murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ku yidhi qoraalkan. Isagoo aan nabaradii hore dhayin ayuu madaxweyne muuse horteena ku tumanayaa sharcigii dalka. Waxa uuna rabaa inuu gacantiisa ku baabi'iyo hay'ado dastuuri ah oo muddo xiloodkoodii dhammaan, isna muddo kordhin aan sinaba u suurtagelaynin cidlo ka baadhbaadho. Laakiin waxa uu moogan yahay, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Ciro, in isagana sharciyadiisa madaxweynenimo mugdi geli doonto haddii uu ixtiraami waayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka. Murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku soo qaatay tuduc ka mid ah maase uu tiriyey Abaan Hadraawi oo uu ku yidhi, nin daacad hoggeeda qoday miyuu ka dambaynayaa? Doorashada madaxtooyada xilligeedii ku qabo 13 bisha Noofembar sannada 2022. Qiiq isku qarin iyo ururo xilligoodii ka hor la furayo laga yeeli maayo. Asxaabta mucaaridka ahina waa u diyaar in ururada siyaasadda xilligooda la furo. Shacbigana jahawareerinta muusow ka daa, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Ciro. Anigu diyaar baan u ahay inaan furo ururada siyaasadda haddii aan ku guulaysto xilka madaxtinimada ee dalka. Bal shacbiga Somalilan ha isweydiiyaan in ururada siyaasadda la furo waxa ay ku sinayd saxeexa madaxweyne muuse ee haddii ay ka run tahay, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Ciro, inuu furo ururada muxuu u saxeexi waayey markii uu hor yaallay xeerku ee intii uu soo diiday ugu soo celiyey golaha wakiilada. Muuse waxaan u sheegayaa, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Ciro, in aanay shalay maanta ahayn. Xisbiyada mucaaridka ah ee aqlabiyadda jamaahiirta Somalilan wata ma kaa yeelayaan, mana u qurqursamayso inaad hortooda Jamhuuriyadda Somalilan iyo dimuqraadiyaddeeda ku burburiso, ayuu ku soo koobay murashax Cabdiraxmaan Ciro oo hadalkan ku qoray barta uu ku leeyahay Facebook. murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaridka Somalilan ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cabdiraxmaan Ciro oo ku sugan dalka dibaddiisa ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook waxa uu kaga hadlay xaaladda dalka, gaar ahaana xaaladda golaha wakiilada Somalilan oo maalmihii u dambeeyey uu ka taagnaa buuq kala irdheeyey xildhibaanada muxaafidka iyo mucaaridka oo ku kala aragti duwanaa xeer nambar 14 oo ka hadlaya furista ururada. Murashax Cabdiraxmaan Ciro waxa uu buuqa ka dhacay golaha wakiilada Somalilan uu ku eedeeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalilan Muuse Biixi Cabdi oo uu sheegay in uu faragelin ku hayo golaha wakiilada. Qoraalka uu murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cabdiraxmaan Ciro uu ku soo baahiyey barta uu ku leeyahay Facebook ayaa u dhignaa sidan: dowladnimadeenna waxaa saldhiggeeda ugu weyni uu yahay in uu sarreeyo sharcigu. Muddadii uu talada dalka hayay madaxweyne Muuse Biixi waxaa xisbiyada mucaaridka dulqaadkooda xudun u ahaa dhowrista kala dambeynta hannaanka dowladnimo iyo nabadda. welina waa ay ku taagan yihiin kuna adag yihiin. Laakiin waxaa cad in madaxweynaheennu kala qaybsanaantii uu ku yimid aanu weli ka waantoobin, ayuu ku yidhi Cabdiraxmaan Ciro qoraalkiisan. Maalin walba waxa uu la soo baxayaa dhaqan cusub oo uu ummadda ku kala irdhaynayo, isagoo ku darsaday in maalinba tiir dowladnimadu ku taagan yahay uu dumiyo. Waxaa cad in maalinba maalinta ka dambaysa sharciyadii dalka iyo nidaamkeenii dowladnimada sida uu doono uu ka yeelo, nabadda iyo dowladnimadii dadka ka dhaxaysayna u sadqeeyo damaciisa iyo doonistiisa. Taana waxaa daliilkeeda inagaga filan fowdada uu geliyey golihii wakiilada Jamhuuriyadda Somalilan iyo ciidanka xabadda nool u adeegsaday xildhibaanadii xasaanada dastuuriga huwanaa, ayuu murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ku yidhi qoraalkan. Isagoo aan nabaradii hore dhayin ayuu madaxweyne muuse horteena ku tumanayaa sharcigii dalka. Waxa uuna rabaa inuu gacantiisa ku baabi'iyo hay'ado dastuuri ah oo muddo xiloodkoodii dhammaan, isna muddo kordhin aan sinaba u suurtagelaynin cidlo ka baadhbaadho. Laakiin waxa uu moogan yahay, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Ciro, in isagana sharciyadiisa madaxweynenimo mugdi geli doonto haddii uu ixtiraami waayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka. Murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku soo qaatay tuduc ka mid ah maase uu tiriyey Abaan Hadraawi oo uu ku yidhi, nin daacad hoggeeda qoday miyuu ka dambaynayaa? Doorashada madaxtooyada xilligeedii ku qabo 13 bisha Noofembar sannada 2022. Qiiq isku qarin iyo ururo xilligoodii ka hor la furayo laga yeeli maayo.
asxaabta mucaaridka ahina waa u diyaar in ururada siyaasadda xilligooda la furo, shacbigana jahawareerinta muusow ka daa ayuu yidhi Cabdiraxmaan Ciro. anigu diyaar baan u ahay inaan furo ururada siyaasadda haddii aan ku guulaysto xilka madaxtinimada ee dalka, bal shacbiga Somaliland ha isweydiiyaan in ururada siyaasadda la furo waxa ay ku sinayd saxeexa madaxweyne muuse ee haddii ay ka run tahay ayuu yidhi Cabdiraxmaan Ciro inuu furo ururada muxuu u saxeexi waayey markii uu hor yaallay xeerku ee intii uu soo diiday ugu soo celiyey golaha wakiilada. muuse waxaan u sheegayaa ayuu yidhi Cabdiraxmaan Ciro in aanay shalay maanta ahayn xisbiyada mucaaridka ah ee aqlabiyadda jamaahiirta Somaliland wata ma kaa yeelayaan mana u qurqursamayso inaad hortooda jamhuuriyadda Somaliland iyo dimuqraadiyaddeeda ku burburiso ayuu ku soo koobay murashax Cabdiraxmaan Ciro oo hadalkan ku qoray barta uu ku leeyahay Facebook. murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaridka Somaliland ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cabdiraxmaan Ciro oo ku sugan dalka dibaddiisa ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook waxa uu kaga hadlay xaaladda dalka, gaar ahaana xaaladda golaha wakiilada Somaliland oo maalmihii u dambeeyey uu ka taagnaa buuq kala irdheeyey xildhibaanada muxaafidka iyo mucaaridka oo ku kala aragti duwanaa xeer nambar 14 oo ka hadlaya furista ururada. murashax Cabdiraxmaan Ciro waxa uu buuqa ka dhacay golaha wakiilada Somaliland uu ku eedeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu sheegay in uu faragelin ku hayo golaha wakiilada. qoraalka uu murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cabdiraxmaan Ciro uu ku soo baahiyey barta uu ku leeyahay Facebook ayaa u dhignaa sidan: dowladnimadeenna waxaa saldhiggeeda ugu weyni uu yahay in uu sarreeyo sharcigu. muddadii uu talada dalka hayay madaxweyne Muuse Biixi waxaa xisbiyada mucaaridka dulqaadkooda xudun u ahaa dhowrista kala dambeynta hanaanka dowladnimo iyo nabadda, welina waa ay ku taagan yihiin kuna adag yihiin. laakiin waxaa cad in madaxweynaheennu kala qaybsanaantii uu ku yimid aanu weli ka waantoobin ayuu ku yidhi Cabdiraxmaan Ciro qoraalkiisan. maalin walba waxa uu la soo baxayaa dhaqan cusub oo uu ummadda ku kala irdhaynayo, isagoo ku darsaday in maalinba tiir dowladnimadu ku taagan yahay uu dumiyo. waxaa cad in maalinba maalinta ka dambaysa sharciyadii dalka iyo nidaamkeenii dowladnimada sida uu doono uu ka yeelo, nabadda iyo dowladnimadii dadka ka dhaxaysayna u sadqeeyo damaciisa iyo doonistiisa. taana waxaa daliilkeeda inagaga filan fowdada uu geliyey golihii wakiilada jamhuuriyadda Somaliland iyo ciidanka xabadda nool u adeegsaday xildhibaanadii xasaanada dastuuriga huwanaa, ayuu murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ku yidhi qoraalkan. isagoo aan nabaradii hore dhayin ayuu madaxweyne muuse horteenna ku tumanayaa sharcigii dalka, waxa uuna rabaa inuu gacantiisa ku baabi'iyo hay-ado dastuuri ah oo muddaxiloodkoodii dhammaan, isna muddo kordhin aan sinaba u suurtogelaynin cidlo ka baadhbaadho. laakiin waxa uu moogan yahay ayuu yidhi Cabdiraxmaan Ciro in isagana sharciyadiisa madaxweynenimo mugdi geli doonto haddii uu ixtiraami waayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka. murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku soo qaatay tuduc ka mid ah maase uu tiriyey Abaan Hadraawi oo uu ku yidhi nin daacad hoggeeda qoday miyuu ka dambaynayaa. doorashada madaxtooyada xilligeedii ku qabo 13 bisha Noofembar sannada 2022 qiiq isku qarin iyo ururo xilligoodii ka hor la furayo laga yeeli maayo. asxaabta mucaaridka ahina waa u diyaar in ururada siyaasadda xilligooda la furo, shacbigana jahawareerinta muusow ka daa ayuu yidhi Cabdiraxmaan Ciro. anigu diyaar baan u ahay inaan furo ururada siyaasadda haddii aan ku guulaysto xilka madaxtinimada ee dalka, bal shacbiga Somaliland ha isweydiiyaan in ururada siyaasadda la furo waxa ay ku sinayd saxeexa madaxweyne muuse ee haddii ay ka run tahay ayuu yidhi Cabdiraxmaan Ciro inuu furo ururada muxuu u saxeexi waayey markii uu hor yaallay xeerku ee intii uu soo diiday ugu soo celiyey golaha wakiilada. muuse waxaan u sheegayaa ayuu yidhi Cabdiraxmaan Ciro in aanay shalay maanta ahayn xisbiyada mucaaridka ah ee aqlabiyadda jamaahiirta Somaliland wata ma kaa yeelayaan mana u qurqursamayso inaad hortooda jamhuuriyadda Somaliland iyo dimuqraadiyaddeeda ku burburiso ayuu ku soo koobay murashax Cabdiraxmaan Ciro oo hadalkan ku qoray barta uu ku leeyahay Facebook. murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaridka Somaliland